Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti wacan wanaagsan daawada meel walbo aad naga daawanayso kusoo dhawaaw Taleex Media. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saaro si aad ula socoto barnaamijyadan halkan kasoo deyno. Haddii aad horey inoola joogtayna fiidiyowgan sii share garay oo la wadaag asxaabtaada like-tana ka hilmaamin. waa sheekadii Waasuge iyo Warsame socdaalkii 30 maalmood qaybteedii 13aad. qaybta 12aad sheekada waxay inoo joogtay waxaa sideedaba Warsamo iga su'aal ah marka aad sidaa u hadlaysid ma waxaadan maqal gabaygii ku saabsanaa amaanta geela ee Cumar Astilia oo ahaa ajal limatay oo laba qabiil eedda kala gaartay afyaraha hadday soo gurtaan nimankii aarsaayay akhyaar iyo cuqaal loo guriyo ee odayo loo sooco wax aqoonta xaajadu hadday aad isugu raagto 100 awr ku dheer yahay haddii ooda laga qaado markaasaa ninkii iilka galay lagu iloobaye adduunyada wax nooloo la siman ku arki maysaane. markii gabaygii la dhegaystay ayaa reer magaalkii oo dhan si hiilo ku jirto u qosleen, qaarkoodna intii ay soo joogsadeen ayayba salaan hambalyo ah u dhiibeen ninkii asaga ahaa. markaasuu asaguna inta uu joogsaday raggii oo dhan gacan qaaday oo intaas kuma ekaysane dadkii dibadda fadhiyeyna yara qooraansaday bal in dumarku qoslayaan iyo in kale. Waasuge iyo Warsame aad ayay ugu qiiroodeen markii ay arkeen sida reer magaalku isugu camirayo sheekada, waxaana ayakoo aan iska warhayn mid waliba amuurta ku xasuustay mahmahyadii ahayd nin geed u buuxo ayay garro u go'daa. isgarabsiga reer magaalku wuxuu odayaashii ku abuuray qab iyo qiiro, midkoodna welwel kama qabin in suugaanta Soomaaliyeed looga guul helo. waa rag ku caanbaxay aftahannimo waaye aragnimona u dheer tahay iyadoo la bulaamayo oo reer magaalkii madaxa isku garaacayo qosol daraadiis ayuu Waasuge inta giddigood isha la raacay oo Warsame garabka jug ka siiyey qosol yarna dhag ka siiyey. markaasaa inta la aamusay asaga la soo wada dhugtay. Waasuge waxaa sidaas ugu sugnaatay in hadal laga sugayo, markaasoo inta si la yaqaan fadhiga ugu negaaday tusaalooyin hujuum ah hadalkiisii ku bilaabay intoosan heerarkiisii furfurin. isla markiiba wuxuu asagoo ku luuqaynaya reer magaalkii u tirshay gabaygii Faarax Xuseen oo ahaa haddaan doono waan dhihi karaa diigasho iyo faane anoona diririn waa ridi karaa daqarro waaweyne dadka eebbahay caabudkiis baan isaga daayay diradiri iyo waan geli karaa dulin islaameede doodu nabad waan gelin karaa dab iyo qiiqiise in namiim cadaab dalaq la siin baan isaga daayay shimbir duulis badan oo dhulkii degi aqoon waayey kol uunbo libaax labadiidaan dalaq yidhaahdaaye inay idabtu shay doora tahay baan isaga daayay daliil gabay ah diin iyo xigmad daacad iyo waano doraad iyo midaan shalay lahaa duug hadday noqoto inaan dhigba hadal deeqayn baan isaga daayay. Warsame oo markiisii hore ku talamayay halkoo tafyada ka saari lahaa reer magaalka ayaa asaguna isiri waa inaad tusaalooyin ay la dhakafaaraan ku daba kartaa hadalka qaayaha leh ee Waasuge. markaasoo iyadoo wili dadkii ku sii jeedo Waasuge oo wax kale laga sugayo inta si lama filaan ah hadalkii u qaatay raggii ugu tirshay gabaygii Cabdulaahi Muuse oo ahaa turdurkuba hadduu dhagax dul maro dihanka qoyn waaye meeshii daleeday biyuhu doog ka bixiyaane dadkuna haddii wax loo sheego darajo dhaamaaye allah dooriyey hadalku waa kaaga daraaye dawo ma laha naag xumi hadday diidowaanada ee darbo iyo dilaaleen iyo inaan dirisba kaa yeelo saddexdaa mid baan kula damcee adigu soo dooro. dhowr qof oo reer magaalkii ka mid ahaa ayaa mar keliya wada booday ayakoo Warsame ku eedeynaya inuu akhyaartii meel ugu dhacay. waxay ka xumaadeen sababta oo Warsame u soo daliishaday gabay loogu hanjabay naag la dhaliilay asagoo la hadlaya raggaas maqaawiir waxaa kaloo ay rumaysan yihiin inuu Warsame murtida Soomaalida lafteed meel kaga dhacay oo dariiqadeedii ka habaabiyey, maxaa yeelay wuxuu gabaygan ugu isticmaalay meel uusan ku habboonayn. waxaana hadalkii qaatay nin reer magaalkii ka mid ah uguna erey kululaa dadka Warsame ceebeynayay, wuxuuna yidhi Warsamow marka aad ku isticmaalaysid mahmaah ama murti kale waxaa la tixgeliyaa qofka aad la hadlaysid, waxa aad ka hadlaysid iyo meesha aad ku hadlaysid intaba layskama dhawaaqo oo lama yidhaahdo wixii madaxa
madaxaaga ku soo dhaco. Warsame markuu gabaygan soo daliishanayay waxa uu maanka ku hayay 3 bay oo gabayga ugu horeysay, kuwaasoo guud ahaan ku tilmaamaya inaan dadka qaar hadalku wax u tarin, sida oosan durdurku doog uga soo saari karin hadduu dhagax dul maro. intaas waxay noogu dhammaaday qaybtii 13aad ee sheekadii Waasuge iyo Warsame socdaalkii 30 maalmood.